kulankani wuxuu ahaa mid siyaasad ka caagan oo aanu sinirbil barakaysan oo rabadana lagu jiraa abwaaninta Soomaaliyeedna kaalin muhiim ah bay kaga jiraan dalka hal abuur oo tusaaleyn af Soomaaliga iyo suugaanteena iyo dhaqankeena soo banaa ay bulshada la wadaagaan dareenka shacabka oo ay cabiraan waayaha jira oo ay cabiraan riwaayad ku cabiraan gabay ku cabiraan maahmaahyo ku cabiraan soo jeedino kala duwan ku cabiraan intaas oo dhanba runtii waxa ilaahay muhibo u siiyay idinka oo ay maaragtay idinku hibeeyay waa kaalin muhiim oo door weyn oo shariif ah oo aad bulshada kaga jirtaan anigu waxaan markaan dib u akhriyo suugaanta ama aan maaragtay ardayda ba ahay dugsiyadii hoose dhexe af Soomaaliga sida fiican u qornaa ee laga shaqeeyay manahijtii uu ku suntanaa waxaad arkaysaa abwaan Soomaaliyeed taariikh soo martay xaalad uu cabirayo oo suugaanta ku jirta iyo sida uu ama dareen uu qabo ama waayo uu ku sugnaa ama bulshada ku sugnayd uu cabirayo riwaayadaha qudhooda beelo waa ka sheekay imika waxba inaafay dhibaato nabadiid oo fikir khaldan oo qof sheeganaya inuu diin ka turjumaya inaafaysi maantadan suugaanti waa noo sheego waxay oo heeso iyo suugaan badan oo dadka soo jiidata waxyaabo aad aniga soo jiiday muwaadinku aaway ya heesaha yani dhaqan galay hirgalay iska jirtii markaa maaragtay iyo nagu dayo walaal soo ma ahayn marka halabuurku waa idin ku jiraa marka kaalin shariifa kaga jirtaan kulankeenna iyo siyaasadda waa ka caagana aanu wada furno oo isbaranana aniga runtii way ahayd xikmadan kala duwan dadkan ay ka soo bitaacdo dadka ka baro ayay ahayd